maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago duco uu ku duceystay nabiyullaahi zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam. ilaahay siiyey wuxuu weydiistay. allahu akbar. qof kastoo muslim ah u baahan yahay ducadan, rag iyo dumarba, caruur ha lahaadan ama yaysan lahaanin, u baahan ducadan inay ku duceystaan. ducadan nabigeena zakariya ku duceystay maxay tahay? muxuu u doortay kalimaadkan aan sheegi doono oo ilaahay u weydiistay? maxaana ku qasbay inuu ilaahay weydiisto ama ku duceysto ducadan? وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. nicantuu ilaahay siiyey ummaddan waxaa ka mida inuu siiyey bilo ka khayr badan bilaha karo. bisha ramadaan waa bisha ugu khayrka badan bilaha ilaahay u abuuray. waxaa ku jira habeenka ugu khayrka badan oo la yidhaah leylat alqadr. qofkii sooma bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban dembigiisa dhan waa la dhaafaa. qofkii qiyaam u istaaga dembigiisa waa la dhaafaa. qofkii leylat alqadr u istaaga dembigiisa waa la dhaafaa. habeen walba ilaahay dad ayuu naarta ka xoreeyaa. ilaahayou nagu dar dadka naarta ka xoreynaysid. ilaahayowna waafaji leylat alqadr. ilaahayou ducadeena aqbal, soonkeena iyo salaadeena iyo qiraa'adeennaba. allahuma aamiin. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. walaalaha ilahi darsi meel adduunkaad ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa ducadii lixaad ama xalaqadii lixaad oo ducooyinkii bisha ramadaan, bishii khayrka, bishii dembi dhaafka, bishii dadka naarta laga xoreynaya, bishii dadka jannada loo qorayay, bishii leylat alqadri ku jirta, bishii ducada la aqbalaya, bishii towbada la aqbalaya. taas waan usoo gelin maalin walba waxaan soo gelinaa qiso oo qisasta towbada ah iyo duco oo wanaagsan loo baahan yahay inaad ku ducoysatid, xifdisidna. 5 ducaan soo gudbinay sax. maanta waxaan soo gelinaynaa ducada lixaad. ducadan raba maanta inaan kuu soo geliyay marka waa duco nabiyullaahi zakariya calayhi salaam uu ku duceystay. saan ognahay nabiyullaahi zakariya wuu weynaaday. nebiyada waaweynka ku dhowl kule asiga iyo nebi ibraahim iyo ayaga caruur ma siinin ilaa inay ka weynaadaan. ilaahay wuu ku imtixaamay. nebi ibraahimna markuu weynaaday kadib aa la siiyey. nebi zakariyana sidoo kale markuu weynaadaa la siiyey. nebi zakariya markuu arkay sidoo weyn markuu arkay inuu ilaahay siinayo maryam calayhi assalaam, nebi ciise hooyadiisa, cuntadii fruudkii waqtiga kuleelaha la helaayay, fruudka la helo waqtiga kuleelaha mataqaana qarahoo kalaa ka mid ah. waxay heli jirtay oo kale waqtiga qaboobaha heli jirtay. fruudka waqtiga qaboobaha la helo oranjigoo kalene waxay heli jirtay waqtiga sayfkoo kale la siin jiray. yacni cambo waqtiga kuleelaha la helo waqtiga qaboobaha heli jirtay. wax walba fruud kasta oo la yaqaan fruud waxaa jirta waqtiga loo soo baxo, mid qabow soo baxo ama cunto waqtigaas la. maryam calayha assalaam ilaahay cunto kasta wuu siiyey waqtiga kuleelaha waqtiga qaboobaha u sinaayeen meeshuu yaalay. wuu soo galay markaasuu weydiiyey. markaasuu wuxuu yidhi yaa maryam annaa laki haada. nebi waaye wuu yahay asaa gabadha mas-uulka ah, asaa korinaayey. annaa laki haada qaalat huwa min cindi illah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. allahu akbar. maryam calayhi assalaam hooyadeeda wanaagsaneed, hooyadeeda suurat aal cimraan markuu ilaahay ka sheekeynaya, hooyadeeda waxay weydiisatay inuu ilaahay wiil siiyo. sababta u weydiistay ilaahay wiilna waxaa waaye inuu u khidmeeyo, because wiilka wuxuu qaban kara masaajidka qaban kara, gabar kama qaban karto. laakiin gabaraa la siiyey, gabar maryam ay noqotay. markaas waxay tiri ilaahayow waa gabar iyo wiilna isku mid ma ahan laakiin ilaahayow waxaan ku weydiinaya inaad ka xifdisid shaytaanka iyada iyo caruurteeda. taas waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay shaytaanka labada qofood kaliya uusan taabanin waxaa waaye waa maryam iyo hooyadiis. ama qof kale juq uu calooshka siina ilaa uu ka ooyo uu leeyahay hey I'm here for you, waa isilaali, waa ku sugaya ilaah soo hadalka soo bilowda, waa ku dhumi doonaa. cadowgeena waa shaytaanka. nabiyullaahi zakariya markii usoo sheegtay intaa usoo sheegtay wuu soo baxay. idnaad mixraabkiisuu galay. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي هب لي دعواتنا مركز. قال وحويري ربي هب لي من لدنك ذرية بس مي
طيبة إنك سميع الدعاء. دعوينك أنبياء يكون دعوي سنجرين ودعوين آدو قابل بكاس إلهي سبحانه وتعالى أفكار كو إلهامنا هذا الكون أحسن. إله كو إلهامنا أفكار هذا الكون أحسن. طيب فيري نبي كان ويمت وحوي ربي جيجو هب لي محانا هن عرورته وهبة من الله صامها يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هبة وأمرك وحوي كلمة إله القرآن كو استعمال وحوي يا ربي هب لي إلهي إيه بيو إسي من لدنك من عندك هذا أذيك إسينا قف إسينا يا ملحن عندية إله إضافة العندية إلهي أذيك كوي ديستي من عندك محوير هب لنا من لدنك هذيك الآن كهربا قف كلمة كربي حاسيس وقفوي أسوقي قفوي إنه يهي محاربته ذرية طيبة عنو كيستمر بعنية وحارب عرور صالحين ذرية طيبة ذرية كلية موسى لهم والدين تد عروت ولا أنت معروت ويدي سنة إله عروس بسه لهم نبي يعني ويل لما ويدي سنين جبرنا ما ويدي سنين عرور ويديستي عرور كلينا ما ويدي سنين وحو ويديستي عرور صالح ذرية طيبة إنك هدنه في إله كسوع إنك إله يو سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إله وحنكو يديسنا الذرية طيبة أو أديك ما هنا قف كالو أطيعين أديك ما هنا قف كالو عابدين شيطان كاكيل ينسى كويدينا إسلام مركي محاد عمك مركو أنت سيري فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب مريم وكسو بحي دعادي ويديستي إسلام مركي ملائكة ويرتي محاليري بشار ذاليري فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب محاليري أن الله إلهي يبحيو أن الله إلهي يبشرك وحكو بشارينا بيحيى مقع ساعة إركا لقسو بحي بيحيى مقع أقوه الري لو بحي عنق لو بحي بيحيى لو بحي مصدقا والله شيء وحال وسي بشاري سوما ويديسن الذرية طيبة إنه يهي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. لكن نبي زكريا محو سمي إله ويديستي وحو إله ويديستي وحو مالك على سكوجه وما كنت بدعائك ربي شقيا فنادى إله ويديستي وحو لجر إلهي وحكستان كويديس كاما وينين اسك إلهي مركينا تراهد أنا وادعو يسا دعا ديدا لما أقبله هذا أساس تراهد دعا ديدا لما أقبله لكن إلهي ملو ناكسن كخيسو وحا تراها وحكستون كويديستو إلهي وما كسيه والله دعا ديدا إلهي هو أقبل أنت نعمو كسيه فير ولا له أنت نعمة هي ستتفيري وما كنت بدعائك ربي شقيا دعاء كنت دعوس خير الله كسيه ونبي زكريا كنت دعوستي والدين تعرور لآنته والدين تعرور تكهر ليسنته والدين تهد انت ذا كوسني كنت عيش هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء خير الله دين سي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى وإنه برتي إيوه دعاء كلا عصب إلى بر لا جارينا وحيدين كعد سنة إنا دقيستي دعاء وكعل عشتي ولا لها كان أسيب خير الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.